filimkan wuxuu ku bilowmayaa magaalo yar oo lagu magacaabo Paradise oo ku taala dalka Mareykanka. Tani waa qiso dhab ah oo bilaabatay fiidnimadii 7 November 2018. Waqtigan nin lagu magacaabo Kevin oo hadda rawal bus school ayaa carruurta guryahooda u kala celinayay. Markii uu baska dhigay garaashka ayuu madaxdiisa weydiistay inuu bishan shaqayn karo saacado dheeraad ah, laakiin madaxdii ayaa ugu jawaabtay eeg halkan waxaa jooga dad badan oo ka shaqo horeeyay. Haddii loo baahdo saacado dheeraadana iyaga mudnaanta leh, balse haddii baahi timaado waan kuu sheegi doonaa. Markii Kevin uu tegay gurigiisa waxaa soo wacay dhakhtarka xoolaha oo daweynayay eegiisa. Dhakhtarku wuxuu u sheegay in kansarkii eegu si tartiib uu ugu faafay jirkiisa oo dhan, waa inaad go'aan degdeg ah qaadataa. Waxaa ku habboon in la daweeyo ama la dilo si uusan u xanuunsan. Isagoo murugsan, Kevin wuxuu bilaabay inuu saacadihii u dambeeyay la qaato eegiisa, laakiin walbahaarkii Kevin uu sii kordhay markii uu ogaaday in wiilkiisa Show aanu aadin maanta iskuulka. Show wuxuu maalin walba samayn jiray cudurdaaro cusub si uu iskuulka uga baaqdo. Kevin wuxuu isku dayay inuu u sharaxo muhiimadda waxbarashada. Show uu ogaa in aabihii uusan dhammaysan waxbarashada ayaa ku yidhi, adiguba iskuulka dhex ayaad kaga tagtay, haddaan aniguna ka tago maxaa dhib ay leedahay? Kevin ayaa isku dayay inuu u caqli celiyo isagoo leh, miyaad waalatay? Aniga duruuf ayaa iga hor istaagay, adiguse fursad ayaad haysataa ee khaladkaan galay ha gelin. Laakiin Show isaga oo cadhaysanaya codka muusiga dheeraystay si uusan hadalka aabihii u maqlin. Kevin wuxuu habeen iyo maalin u shaqaynayay si uu qoyskiisa uga farxiyo, wuxuuna rabay inuu arko wiilkiisa oo nolol qurux badan ku nool. Isagoo niyad jabsan, Kevin wuxuu eegiisa u kaxeeyay dhakhtarka. Markii eegana noloshiisa ku soo biiray, wuxuu ahaa eey yar oo qurux badan, muddo dheerna saaxiibkiisa ugu dhow. Ugu dambeyntii go'aan culus ayuu qaatay, wuxuuna dhakhtarka ku yidhi si irbadda ma daawan karo isagoo xanuunsanaya. Maalintii xigtay, cimilada ayaa si lama filaan iskugu beddeshay mid aad u xun. Dabaylo xooggan ayaa dhacay, duufaantuna may joogsanayn. Kadib tiir koronto leer ayaa si xooggan u qarxay, xadhkihiina waxay ku dhaceen buuro qalalan, isla markiina dab ayaa meel walba ka kacay. Subaxaas markii Kevin shaqada tegay, wuxuu dareemay in codku yara madow yahay sida caadada ah. Baskiisa ayuu qaatay si uu iskuulka carruurta u geeyo. Markii uu soo laabtay, mudanihiisa Ruby ayaa ku tiri, baska u gee makaaniga si loo hubiyo, waanu ku siinayaa lacagta saacadaha dheeraadka. Isla waqtigaas waaxda dabdamiska ayaa heshay wicitaan ka yimid darawal gaari xamuula, kaas oo u sheegay in dab ka kacay buuraha. Markiiba waaxda oo dhan way hawlgaleen, waxayna toos u aadeen halkii dabku ka kacay. Wax yar kadib waxay arkeen hawl aad u weyn. Dhinaca kale, Kevin oo shaqadiisa ku jira ayaa waxaa soo wacday hooyadii, waxayna u sheegtay in Show aad u xanuunsan yahay, loona baahan yahay in si dhaqso ah loo geeyo dhakhtarka. Dhanka kale, kooxda dabdamisku markii dabka u soo dhawaadeen, madaxoodii Mark Kenz wuxuu qiyaasay in la dagaalanka dabkan uu aad u khatar badan yahay. Wuxuu gartay inuu u baahan yahay gurmad dheeraad ah maadaama aanay keligood wax u qaban karin. Kevin intii uusan baska garaashka geynin, wuxuu wacay hooyadii oo ku yidhi, bal hubi in Show xumadu ku badan tahay. Laakiin isla waqtigaas wuxuu arkay daruuro qiiq iyo dambas madow ah oo ku soo socda. Si dhaqso ah ayuu dawo ugu doonay wiilkiisa si khasaaraha loo yareeyo loona joojiyo faafitaanka dabka. Madaxa dabdamiska ayaa amar ku bixiyay in magaalada oo dhan laga damiyo korontada, laakiin dabku wuxuu noqday mid khatar ah. Guryo badan oo aagaas ku yaala holac ayaa hareereeyay. Dadkiina waxay bilaabeen inay argagaxaan oo ay rabaan inay ka baxsadaan meesha. Markii uu arkay dadka oo guryaha gubanaya ka soo baxaya, dabka ayaa meel walba ku faafaya. Madaxa dabdamisku wuxuu fahmay in xaaladdu faraha ka baxday, wuxuuna markiiba dalbaday kooxda caafimaadka. Kevin oo guriga ku sii socda ayaa waxaa soo wacday Ruby, waxayna ku amartay in baska dhaqso garaashka ugu soo celiyo. Laakiin Kevin shaqada waxaa kala weynayd walwalka wiilkiisa. Wuxuu iska indhatiray amaradii, wuxuuna ku hakaday farmashiye. Markii uu farmasiga ka soo baxay, Kevin wuxuu arkay daruurta qiiq ahayd oo sii madoobaatay. Hadda si uu shaqadiisa u badbaadsado, wuxuu ku degdegay dhanka garaashka. Dhanka kale, madaxa dabdamisku wuxuu ogaaday in baabuurta dabdamisku aanay gaari karin meesha dabku ka kacay. Sidaa darteed wuxuu caawinaad weydiistay dabdamiska si dabka buuraha ka kacay looga hortago. Baabuurtooduna waxay bilaabeen inay dadka badbaadiyaan. Hopkins markuu arkay dadkii inuusan wada badbaadin karin waqtiga ku habboon, wuxuu gaariga joojiyay meel balli ah, wuxuuna dadka ku amray inay biyaha ku dhex dhuntaan. Isagoo caawinaad dalbanaya, wuxuu isku dayay inuu dadka dejiyo xarunta dhexe. Iyagoo eegaya jihada dabaysha, waxay xisaabeen in magaalada Paradise oo dhan dabku si dhaqso ah u gubi doono. Sidaa darteed waxaa la bixiyay amar ah in magaalada la banneeyo. Laakiin dabka baahsan iyo koronto la'aanta awgeed, dhammaan isgaarsiintii way go'day. Dabaylaha xooggan awgood, diyaaraduhuna dabka may joojin karin. Macallimiintuna waxay bilaabeen inay raadiyaan qaab ay carruurta guryahooda u geeyaan. Kevin oo garaashka ku sii wajahan, waxaa soo wacday xaaskiisii hore ee Linda, iyada oo ogaatay in Show xanuunsan yahay. Linda ayaa ku qaylisay, ma ahan inaan adiga kaaga tago, sidee baad u daryeeshaa? Kadibna telefoonka way ku jirtay. Kevin oo walwalsan ayaa gaariga joojiyay oo wacay wiilkiisa, laakiin jawaab kama helin. Si lama filaana, wuxuu baska u leexiyay dhanka gurigiisa. Dhanka kale, Mary ayaa carruurta qaarkood waalidkood u dhiibaysay. Way waalidkood maqnaayeenna waxay maamulaha weydiisay waxa laga yeelayo. Maamulaha ayaa garaashka wacay oo dalbaday bas. Ruby ayaana darawalada weydiisay kuma ayaa iskuulka u dhow. Kevin ayaana jawaabay isagoona yidhi aniga carruurta soo qaadaya. Markii uu iskuulka gaadhay, hoonka gaadhiga ayuu yeedhiyey, laakiin cidna ma maqal.
wuxuuna orod ku galay fasalka wuxuuna Mary ka codsaday in carruurta baska u saarto Mary waxay garatay inuu kaliya carruurta xakameyn karin sidaa darteed ayay iyaduna baska u raacday waxay bilaabeen inay raadiyaan wadada ugu dhaqsiyaha badan ee magaalada lagaga baxo wadooyinka oo dhan waxa xidhay traffic jam Kevin wuxuu isku dayay inuu marahaad khaldan laakiin si kadis waxa uga soo horbaxay gaari dibdamis ah wuxuuna ku sigtay inuu ku dhaco balse uu ka badbaaday dhinacyada wadadana dab ayaa ka kacay waxayna dhex mareen meelo gubanaya ilaa ay ka gaadheen meel uusan weli dab soo gaadhin Ruby ayaa raadiyaha isku dayeysay inay Kevin kala hadasho laakiin jawaab kama helin kaaliyaheeda ayaa u sheegay in Kevin telefoonkiisa uu signal lahayn laakiin marxaladaas dhexdeeda waxaa ku xasuusinaya inaad like saarto muuqaalka oo hilmaamtay inaad like saarto channelkan aad subscribe tiraahdo oo nagu soo biirto isla waqtigaas waxaa la bixiyay amar in magaalada Paradise oo dhan la baneeyo intuusan dabku wada qabsan markii Kevin waayeen Ruby iyo shaqaalihii kale waxay ka carareen garaashka oo aadeen magaalada ku dhow sababtoo ah naftooda ayaa khatar ku jirtay baska dhexdiisa Kevin wuxuu la sheekeysanayaa Mary si ay wax yar u degto wuxuuna ogaaday in Mary nolosheeda oo dhan magaaladan ay ku noolayd halka Kevin uu dhalinyarnimadiisa ka tagay oo uu soo laabtay bilowga sanadkan markii aabihii dhintay Mary waxay ka fakaraysay wiilkeeda 15 jirka ah ee Jack iyo ninkeeda kadib carruurta ayay u tagtay si ay niyadda ugu dhisto isla waqtigaas isbitaalka magaalada dab ayaa qabsaday Ray ayaana kooxiisa u diray inay dadka badbaadiyaan wuxuuna helay war sheegaya in dabku u faafay si ka dhaqso badan sida ay filayeen kooxda dabdamiskuna waxay ogaadeen in jidadka oo dhan ay xidhan yihiin sababtoo ah dad badan ayaa baabuurtooda kaga cararay bartamaha wadada Ray wuxuu amray in jidadka la baneeyo si aan dad badan dabku u qabsan Kevin markii uu ogaaday in wadada weyn ay xidhan tahay aad buu u argagaxay markale ayuuna wiilkiisa wacay laakiin show weli ma qabanayo Kevin walaalkiisa uu sii kordhay waayo wuxuu ogaa in hooyadii aanay gaari kaxayn karin markuu arkay dabka oo soo dhow Kevin wuxuu Mary ku yiri steerinka qabo isagoona u degay si uu baabuurka wadada xidhay u yara riixo si ay u dhaqaaqaan kadib baska ayuu dib u soo fuulay wuxuuna naftiisa ku yiri iskuulku dhowr mitir buu noo jiraa isagoona yara nastay laakiin dhibti dhabta ahayd hadda bay bilaabatay markii ay gaadheen waxay arkeen iskuulkii oo isna gubanaya raadiyayaasha oo xumaaday dartood Ruby uma sheegi karin warkaas Mary ayaa baska ka degtay iyadoo rajaynaysa in waalidiin carruurta raadinaya ay joogaan laakiin cidina ma joogin dadkii oo dhanna way qaxeen waxayna garan weyday wax la sameeyo waxayna Kevin ku tidhi inaan carruurta magaalada kale u qaadnaa malaha dadku halkaas ayay aadeen carruurtii way argagaxeen markay arkeen dabka iyo dambaska waxayna u haystaan in waalidkood dib aysan u arki doonin laakiin Mary ayaa niyadda u dhisaysa si ay aagaas uga baxaan markii Kevin uu dhaqaaqay wadada weyn wuxuu u arkay xadhig koronto oo luxmaya kadibna soo dhacay taasi waxay sababtay shalal badan si uu baska uga badbaadiyo korontada Kevin wuxuu maray wada kale wuxuuna jirsiiyay deer alwaaxa oo kor yaalay markii uu dhibkaas dhaafay ee wadada weyn gaadhay wuxuu arkay wax argagax leh wadadii oo dhan way burburtay dabdamiska iyo booliiska ayaa naftooda biimeynaya si ay dadka u badbaadiyaan si kadis ah Kevin wuxuu arkay koox hubaysan oo dadka dhacaya waxay isku dayeen inay baska qabsadaan si uu carruurta u badbaadiyo Kevin wuxuu baska mariyay haad kale isagoo si xirfad leh uga leexday ilaa uu ka gudbay magaalada dariska Ruby waxay raadinaysaa wararka Kevin darawal ayaana u sheegay inaan weli magaalada soo gaadhin Ruby waxay isku dayday inay waalidiinta dejiso laakiin walaalkooda ayaa badnaa Kevin wuxuu gaadhay meel u dhow warshad uu bari ka shaqayn jiray wuxuuna ogaa wada qarsoon oo dhismaha gadaashiisa marta taas oo magaalada lagaga baxo laakiin mid ka mid ah carruurtii ayaa aad u xanuunsaday qiiqii argagaxa dartii Mary ayaana tidhi George aan biyo u raadiye waxayna ku tidhi haddaan shan ilbiriqsi ku soo noqon waayo iska tag Mary waxay gashay gaadhi weyn oo meesha yaalay waxayna ka heshay biyo markay soo laabanaysay waxay aragtay nin hubaysan laakiin nasiib wanaag qarax weyn ayaa gadaal ka dhacay ninkii ayaana ku mashquulay Maryna way ka carartay oo baska soo fuushay Kevin wuxuu istaaray gaadhiga laakiin qaraxa awgiis wadadii way xidhantay waana inuu soo wareego wax yar kadib waxay galeen wada qardajeexa taasoo cidla Kevin wuxuu u sheegay in wadadan ay geen doonto wadada weyn laakiin dhibtu waxay tahay in buurtani tahay mid cidhiidhi ah taasoo buur dhex marta waana wada khatar ah jidka dhexdiisa Kevin wuxuu arkay dad badan oo lugeynaya oo dhankaas halkuu ka yimid u socda wuxuuna fahmay in wadada weyn mar horeba la xidhay markii dadkii dhaafeen Kevin uu degay si uu u hubiyo in wada laga baxaa jirto wuxuuna ogaaday in basku dhex galay dabka cid badbaadin kartaana aanay jirin Kevin baska ayuu ku laabtay wuxuuna go'aansaday inay baska gudihiisa ku sugnaadaan wuxuuna rajaynayay in dabdamisku soo gaadho intaanu dabka iyaga soo gaadhin haddii kale way dhimanayaan Kevin wuxuu jaxjaxay shaarkiisii wuxuu Mary ku yidhi kuwan biyo ku qoo oo carruurta siisii si aysan ka ugu qabtaan daaqadaha iyo daloolada ayuu wax kaga xidhay si uu qiiq ugu soo gelin saacada kadib Beth ayaa la hadashay madaxdeeda Ray waxayna u sheegtay in dad badan buuraha ku dhex xayran yihiin kumanaan kalena ay lugeynayaan haddii aan xaaladda la xakamayna dad badan ay dhiman doonaan Ray wuxuu garowsaday inuu kala dooranayo badbaadinta dadka iyo deminta dabka baska dhexdiisa Kevin wuxuu carruurta ku yidhi daaqadaha ka fogaada waayo kulaalka ayaa aad u soo kordhay Mary ayaa iyaduna ka sheekaysay nolosheeda iyadoona sheegtay inay 2 jeer magaaladan ka baxday maantana waxaan dareemayaa inay taasi nolol ahayd haddaan badbaadana adduunka oo dhan ayaan ku soo wareegi doonaa Kevin isna wuxuu xasuustay aabihii wuxuuna yidhi 28 sano ka hor ayaan isqabanay guriga ayaana ka cararay anigoo 16 jira markii la ii sheegay inuu xanuunsan yahay ayaan soo laabtay laakiin uu dhintay intaan soo gaadhin wuxuuna ka ooyay inuuna
wuxuuna aabba fiican u noqon wiilkiisa Show sidii aan wiil fiican ugu noqon aabihii. Isla waqtigaas Kevin wuxuu arkayaa in dabkii baska soo gaadhay, wuxuuna qaatay haanta dabdamiska, wuxuuna u baxay inuu dabka agagaarka baska ka fogeeyo. Wuxuuna isku dayay inuu waqtiga lumiyo inta karaankiisa. Markii uu ogaaday inuu dabka celin karin, ayuu go'aansaday inay dabka dhex jiiraan, laakiin matoorkii baska ayaa kuleel dartii istaagay. Kevin wuu orday oo mashiinka hagaajiyay, wuxuuna ku qayliyay Mary oo ku yiri gaadhiga start. Matoorkii uu kacay, Kevin ayaana steerinka qabtay, wuxuuna kaxeeyay gaadhigii isagoo go'aansaday inuu holac dhex mariyo. Carruurtii way qayliyeen markay arkeen baska oo dhex maraya dabka. Maryna way qosatay oo dhimasho ayay isku diyaarisay, laakiin Kevin ma joogsan, wuxuuna go'aansaday inuu carruurta badbaadiyo si kastoo tahay. Daqiiqada kadib waxay ka soo dhex baxeen holacii, waxayna soo gaadheen waddo nabada meel ka durugsan qiiqa magaalada Paradise. Kevin neef weyn ayaa ka soo go'day, Maryna way rumaysan weyday inay nool yihiin. Wax yar kadib waxay gaadheen xarunta qaxoontiga ee magaalada deriska. Carruurtiina waalidkood ayay la kulmeen. Maryna waxay ogaatay in wiilkeedii iyo walaashada ay badbaadeen. Dhinaca kale Kevin iyo Ruby ayaa kulmay. Ruby ilmo ayaa ka timid, waxayna ugu mahadcelisay geesinimadiisa, laakiin Kevin wuxuu walwal ka qabay hooyadii iyo wiilkiisa oon liiska ku jirin. Isagoo walwalsanayo dadkii dhex maray, wuxuuna arkay hooyadii oo ambulance lagu daweynayo. Deriskooda Jerry ayaa soo badbaadiyay, waxayna u sheegtay in Show ay hooyadii Linda ka haysatay. Markii ay warka maqashayba Kevin aad buu u farxay. Maalintii xigtay markii dabkii la xakameeyay, Kevin wuxuu tagay halkii gurigiisa ku yaalay. Wax walba dambas ayay noqdeen. Wuxuu soo qaatay sawir yar oo wiilkiisa ah, isagoo murugsan ayaa waxaa soo istaagay gaadhi ay wado Linda. Show ayaa ka soo degay oo ku soo orday aabihii, iyagoona habis siiyay. Kevinna wuxuu garowsaday inuu wali waqti haysto. Filimkeena maantana halkaas ayuu ku eegyahay. Sheekada filimkana waa qiso dhaba oo laga matalay dhacdo ka dhacday dalka Mareykanka 2018. Daawaday haddii aad halkan la soo gaadhay, waxaan kaa codsanayaa inaad like sarto muuqaalka, channelkana aad subscribe tiraahdo. Halkan waxaan ku soo gudbinaa filimo aad u xiiso badan oo aan si joogto ah ugu soo gudbino channelkeenan. Haddii aad u baahan tahay filimka magaciisana, hoos ayaan idiin soo dhigay.